su'aalaha ayaan toos insha Allah ta'ala ugu geli doona su'aasha ugu horeysa waxa soo qoray walaal dabada jooga waxa uu leeyahay nidar ayaan galay inaan 3 cisho soomo iyadoo aanan wali 3 cisho soomin ayaa bishii Ramadaan ay soo gashay marka Ramadaantii kadib dhowr cisho ayaan soomay buu leeyahay oo aan bilaabay marka ma waxaan horsoomayaa buu leeyahay 3 nidarka ahaa mise waxaan horsoomayaa qalihii Ramadaan wuxuu leeyahay qalla la igu yeeshay dabeetana maqalihii baan soomayaa mise nidarkii baan horeysiinayaa su'aasha labaad gabadha ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh rubadka ayaa inta badan xanuuna waqtiga Ramadaantii horena waxa la igu lahaa 15 cisho oo ma aanan soomin markastoon israahdo soonna xanuunkaasi uu igu yimaadaa dhakhtarradina waxay ii sheegeen inaan negative ahay oo aan waxba la igu lahayn waxba aanay haynin marka 5 cishaan 15kii ka soomay 10 ka soo haray fidiyo ma bixin karaa bay leedahay su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh wadna xanuun ayaan leeyahay marka aniga oo sooman hadii wadnuhu ay xanuuno miyaan afurayaa dhinaca kale waxa uu leeyahay maalmaha kamid aniga oo sooman ayaan dhacay dabeetana ardaydii jaamacadda ila dhiganaysan ogeyn inaan soomanahay ayaa waxa ay siiyeen biyo marka miyay iga jibinaysaa soomkaygii buu leeyahay su'aasha afraad gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh uur leh waana ilmihii koobaad oo ugu bayaanahay ilmuhuna waa 7 bilood sida awgeed kursi ayaan ka tukadaa bay leedahay culayska ilmahaas awgii marka ilaahay ka raali hada sheekh diintu maxay arrinkaasi ka qabtaa su'aasha ugu dambaysa waxay leeyahay saa'ilkani waxa aan maqlay in marka la ducaysanayo aan la raacin karin ereyga insha Allah marka maxay tahay talow sababtu qofku isagoo ducaysanaya ma oran kara ilaahu waxa isi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد سؤال شهرين نذرك يا رمضان كيف له الرئيسينية رمضان بل له الرئيسينية وقت كان عبادتنا وعبادة مضيقة وليست موسعة ما هم من وقت جيدو وحول بأقبل كره صومك كليه بشهر رمضان يقبل يسا ورمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القاسي آخر ذي لها يحلو فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان بلو صومي كرا كدي من النذر كاسات آيات صومي دونتا مرك رمضان لقبحه الله هي النذر كهدي الله يدعنا لبضك كاتونتا الرئيسين كرتا قلهنا دق maaha nadarkuna waad horeysin kartaa waana dibdhig kartaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa war Ramadaanta waqtigeedu joogay marka labada su'aalooda kale waxay la xiriiraan bukaanka iyo Ramadaanta qofka bukaanka ahi haduu soomi kari waayo uu iska cunaya maradu buko Ramadaantuna soomkuna dhibayo uu iska cunaya uu iska afuraya sida quraanka bay ilaahay ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala waanu soo qalaynaya intii maalmood Ramadaan ka tagta in leeg hadii ay u suuroobi weydo inuu soomo Ramadaan qalihiina u suuroobi waayo cudurka daraadi raashin buu bixinaya maalintii walba 1 kiilo 30 cisho 30 kiilo 29 cisho 29 kiilo saasuu wadaya marka bukaan la rajaynayo inuu ka bogsado iyo bukaanaan la rajaynayn inuu ka bogsado labadaas baa loo kala qaadaa ka xanuunkaagu yahayna adiga sheegi ama rubadku ha ku xanuunayo ama wadnuhu ha ku xanuunayo labada mid baad galaysa adiga iyo dhakhtarku marka isla eegtaan ama qalla ku suuroobiyo waad soo qallayn hadii soomkii waqtigiisu la joogay iyo qallihii midna suuroobi waayo raashinka loo guuraya qofku haduu ku tukan kari waayo fadhiga ama uur halahaado ama jilbuha xanuunaya ama dhibaato hayso wuu iskaga tukan karaa fadhiga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam imraan ibn husayn asxaabiga la yiraahdo uu jawaabayo sara jooga ku tukab dad kari wayda fadhiga dad kari wayda chief fattaqullaha mastada'tu adiga waxba ha karanaynin kolba sidii aad kari kartaa baad ilaahay ku caabudaysa laguna kalifi maayo ducada iyo mashii'ada la isma raaciyo
ilaahay waxa isti haddaad doonto waa la diiday oo rasuulkaa diiday sala allahu calayhi wasalam min aadaabi adducaa aljasm ducada aadaabteeda waxaa ka mid a inay go-aan ahaato haddaad doontana go-aan kuma jiro hadduu dooni waayo maxaad qaadi kartaa ila ilaahayow haddaad doonto iga aqbal baad tidhi hadduu dooni waayo meel kale oo aad u kacdo iyo cid kaleood ilaahay ku bedelata miyaad haysaa marka aadaabta ducada kama mid ahaa in shaa allahu in la idhaahdo ilaa in shaa allahu macnaheedu waxa weeye haddaad doonto xataa haddii ay tabarugtood barakaysanaysa waad ka daynaysa maadaamuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat الshaykh qeybta labaad ee su-aashan koobaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh anigoo aan daahir ahayn qur-aanka dusha ma ka akhriyi karaa ama ma dhegaysan karaa talabaad aayadaha adkaarta ku jira sida adkaarta subaxii la akhriyo iyo aayatulkursiga oo kale saasoo kale ku jira iyaga ma akhriyi karaa bay gabadhaasi leedahay su-aasha labaad ardayad baa soo qortay waxay leedahay sheekh markaanu aqoonta ku tartamayna casharada dugsiga ee nalooga baahan yahay degdega ma soo gaabsan karaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aan qorayo anigoo xarafka saad keliya usoo gaabinaya ma soo kaabin karaa ayay leedahay su-aasha ku xigtaa nin ayaa soo qoray waxa uu leeyahy sheekh waxaan ku noolahay dalalka galbeedka waxaana meesha aan deganahay aada ugu badan kiniisadaha iyo meelaha ay gaaladu ku cibaadaystaan haddii aan galo kiniisad diintayda miyay wax ka soo gaadhayaan anigoo doonaya inaan soo daawado iyo waxyaabaha la midka ah su-aasha ku xigta saa-iilkani waxa uu leeyahy sheekh sidoo kale waxaan deganahay dalalka galbeedka waxaan asxaab la ahay dad badan oo aan muslimiin ahayn marka xafladaha ciidda gaalada ma ka qeyb geli karaa haddii saaxiibadayda gaarka ah ay igu soo marti qaadaan su-aasha qeybtan ugu dambaysa saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh qurbaha ayaan deganahay halkan badi dumarka soomaalida ee ku nooli buu leeyahay sanka ayay dalooshadaan markaa weydiinteedu waxay tahay qofka dumari inay sankeeda dalooliso ma bannaan tahay bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim alxamdu lilah ruuxa dumari markaanay daahir ahayn ama qofkuba dee uu jinaabo qabo mas'ale khilaafiya weeye waa masale ay culimadu isku khilaafeen qur'aanka kariimkaa inuu akhriyi kara iyo in kale laakina jumhuur culamaa calaa khilaafi culimadu intooda badani waxay qabaan calaa an laa yaqra' inaanu qofkii qur-aankii akhriyin kitaabkiina taabanin sidaa daraaddeed waxaynu leenahay dee baahi adagoo kuu qabata mooyaane sida adigoo imtixaan ku jira ama qofkii qur-aankii ilaawayo xaaladaha mooyaane inuu qofku iska daayaa wanaagsan dikriga kii u qaalisanaa weeye qur-aanku layskumana khilaafsana dikriga inay wanaagsan tahay marka uu qofku daahir yahay sidaa daraaddeed dahaaradaad la eegan insha allah kolka rasuulka sala allahu calayh wasalam magaciisa lasoo qaado waa in lagu saliyaa sala allahu calayhi wasalam taasi waa markii dee afka laga dhawaaqayo laakiin markay qoraal noqoto miyaa la dhammaystirayaa mise waa lasoo gaabsan karaa sida fiicani waa in la dhammaystira bay leeyihin culimadu ikhtisaarkuna wuu iska bannaan yahay inaad soo gaabiso saadku soo gaabiso siduu imaamu axmed samayn jiray raximah ullah laakiin waxaa ka fiican in la dhammaystiro kaniisadda inaad iska daysaa wanaagsan haddaad gelaysana dadka ku jira inaad hanuunisood waxu sheegto ayuunbaad u geli kartaa laakiin inaad dalxiisto iyo inaad daadaawato waaba intay ku jiidataaba waa wax naftooda soo jiitaa oo ama lagu xayeysiinayo ay meesha ka jiraan ama lagaa qaniinaba intuba waa suuragal marka inaad iska daysoona tegin ayaa wanaagsan ama aan diintaadu laakiin waxba noqon mayso kole haddaanu qofku gaaloobin oo aanu ku tukanayn diintiisu waxba noqon mayso laakiin daawashadeedu sax maaha inaad iska dayso weeye inaad ciidaha gaalada kala qayb gasho iyo inaad la saaxiibto gaalkii labadubana waxay kuu jiidi karaan gaalnimo xaaraan weeye ciidaha gaalnimada in laga qayb galo waayo ictiraaf bay sheegaysa inaad aqoonsatay oo aada ictiraaftay wax baatil ah shay baatila oo aan jirin inaad ictiraaftood aqoonsatay ayay sheegaysa marka inaad iskaga bereti noqoto wey
sidaa daraaddeed baa culimaduna aada uga digi jireen waidaa maruu bilagwi maruu kiraama wixii xun markay soo maraan way dhaafaan ee kama qayb qaataan iyo wixii bilaa macno ah wax macsiyaana iska daabaan qofka gaalkaa la saaxiibistiisuna khatar bay leedahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyay almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalib qofku diinta saaxiibkiibuu haystaaye qof walooba ka fiirsa ciddad la saaxiibayso dhibcuu kugu dhibqinayaa marka dambe wixii sucaadi bay kula noqonaya inaad raacdaana waa laga yaabaaba sankoo la dalooshada ma bannaana waayo wejiga wuxuu diiday nebigu in lagu ciyaaro xataa xoolahan laga sunti karin dadkuna inuu dalooshado iska daa marka waa dhaqamada hinduuska iyo hindida bariga ee dabcaabudka ah soomaaliduna wixii arkaanba waxay isaga qaataan inuu yahay ilbaxnimo walow gaalnimoba ha ahaadee saa daraaddeed la daloolin maayo waa inay dumarku ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat sheikh qeybta ugu dambeysa ee su-aalaha su-aal baa jirtay maalmahan soo noqnoqonaysay oo maalintii sabtida waxaa dhacday in eedaankii salaada maqhrib dadka qaar ay eedaameen wakti ka horeeya waktigii ay ahayd in la eedaamo sidaa awgeedna dad badani ay ku qaldameen oo ay markaa ku afureen markaa sheekh dadkii afuray soonkoodii muxuu noqonayaa qofka muadinka ah ee ammaanadii ilaalin waayeyna isagana maxaa laga yeelayaa su-aasha ku xigta gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh hooyadii waxay ii bixisay yurub aniguna markii aan ogaaday in waddamada gaalada magacaa la yidhaahdo waan iska bedelay oo hodan ayaan la baxay reerkii markaa aan ka dhashay waxa aan u sheegay inay iga daayaan magacaas markaan la joogo waxay inta badan iigu yeedhaan bay tiri hodan balse markaan ka maqanahay waxay ii yaqaanaan yurub marka su-aashaydu waxay tihi horte marka hore xaq ma u leeyahay inaan magaca iska bedelo waa kow waa marka labaad ee qofkii magacaa iigu yeedha aan diidanahay muxuu noqonayaa su-aasha labaad ee saddexaad gabadhan waxay ninbaa waxa uu leeyahay xaaskaygii 2 goor ayaan iyadoo uur la furay haddana mar saddexaad baan furay markaa ma laga yaabaa buu leeyahay sheekh in qiil lay helo sababtoo ah reerkayga waan jeclahay shaydaan ayaana soo kala dhex galay markaa 2 goor ee uurka furniinkii sax ma yahay mise markaa waa layga dhaafayaa buu leeyahay su-aasha afraad gabadh ayaa waxay leedahay fadiilata sheekh nin baanu muddo dheer sheekaysanaynay markii dambena wuxuu igu yihi waxba gacanta kuma hayo ee aynu ismeherxadno oo aynu si hoose isu sii mehersanno kadibna markii la gaadhay wakti ee aan ku idhi dee reerihii aynu sheegno wuxuu igu yidhi runtii anugu kumaan odhan sheeg ee qarsoodigaasaynu ku wadaynaa raggaygii markaan u sheegayna wuxuu ku yidhi anu gabadhaa garanba maayo sidaa awgeed waxay leedahay maadaama oo dee meher dhacay miyaan ninkii meher ku leeyahay furiinna ma ka dalban karaa su-aasha ugu dambaysaa gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh shaqaale caafimaada waxaanan ka shaqeeyaa cusbitaallada mid ka mid ah dadka aan u shaqeeyo waxaa ka mida bay leedahay rag marka haddii anigoo weyse qabaa nin aan u shaqaynayo ama aan dhiiggiisa cabirayo gacantiisa aan taabto weysadu ma iga jabaysaa sidoo kalena hooyo umulaysaa haddii aan caawiyo anigoo golofis xidhan oo dhiiggeedii soo gaadho sida oo kale weysadii ma iga jabaysaa بسم الله الحمد لله مغربك مغربك هدي وقتيسي laga horeysiyo afurkana waqtigiisi laga horeysiyo labadaba waa qalle salaadii maqriba waqtigeedii aan la gaarin oo la tukaday waa qalle maalinka isagoo aan dhamaystirmin qoraxdu soo jeeda la cunayna waa qalle qofka adaamay iyadoo waqtigii la gaarinna de waa dambiile لأنه أمانة مو جذانين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الماء قف كمؤدي كينو يا مؤتمن قف الآمنين مركب وحبو خيانة وخاين خيانة دينات بالسماء قف كنا هدو خيانة السماء حر ولا أما أبا المرن ولا عقاب أيقول لي فوضى إنها يستون بكمة فوضى لنا عيب بدن بينها يستا هي النظام حماض حاجة دين تنوى كم مركب الرئيبة فوضى واحد كتشتا قفان مسؤولية دين قاضي كرينو اللودي بيو أذانك أحكامتي سمايق والله يا كنتميين أذانك أحكامتي سكب بدنت ما قرنايو إمام نمام ما قرنايو غير هبل باللوجو دي مساجك دينو غير هبل ويري يوم مركب قاضي وكاكو يري القرآن عادي سوى شيء ده أذاني
marka masaajidada dadka ama imaam looga dhigaya ama muadin looga dhigaya ka dhisayna uu ku dambaabaya cid aan helayn haduu u dhiibo kanina haduu dadkii afuriyo waa ku dambaabay in la daba galo oo lala xisaabtamo oo meeshii laga eriyana way si aanu dib ugu noqonin waana dhacdaa taasina waxa keenaya inay soo noqnoqoto waa wax qabad la'aanta jihooyinka ay khusayso ama cidda masaajidka ka mas'uula ama wasaaradii ka mas'uulhaydo waajibkoodii gudan waayay ayaa kalifaya dadkuna way soo qaleynayaan inanta sheegtay in Yurub loo dhan jiray iska bedeshay way ku hagaagsantay magac kasto xun qofku iska bedeli karaa sidoo rasuulkuba uga bedelay sallallahu alayhi wasallam rag iyo dumar ba asxaabtiis wixii magaciisa uu garan waayay uu ka bedeli jiray nabigu qofkuna isaga xaq u leh magaciisa inuu bedelo dadku hadii ay kugu yeedhaan de way fiican haday kugu yeedhi waana way qaldayn waliba magaca diidayso ama xun hadii lagu yeedhana qaybaha xanta ayay ka mid noqonaysaa dhikr alghibatu dhikruka akhaka bima yakrah xan waxa la yiraahdaa walaalkaaga ugu yeedho qofkii muslimkaada ugu yeedho wuxuu diidayo marka adigu doorkaaga waad qaadatay iyagana kula talinay ka daayaan ninka sheegay xaaskiisa inuu furay mar labaadna furay mar saddexaadna furay iyada uur leh saddexda dalqadood way dhacayaan waayo gabadhu markay ku jirto ciddo hadii mar labaad la furo uu haleelaya talaaq mar saddexaad hadii la furana uu ka daba tagaya kol hadii talaaq aanu mar kale ahayn ee uu kala googo'an gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa dalqadu ma ku dhacaysaa hawe ku dhacaysa oo waxay leedahay xukunkii ooridoo kale marka way ka dhamaadeen bay ka dhigantay saddexda dalqadoodba gabadha sheegaysa in iyada iyo ninku ismeher xadeen meerka la xaday ma jiro laakiin haddana marka aad doonayso inaad nin kala guursato ama ka madax banaanaato laabudda min waraqati tafriiq warqad idin kala kaxaysa waa inay jirto ama isagu ku qoro ama qaadigu ku qoro laakiin iskama guursan karaysid ila waxaan marka horeba guur baad u aaminsaneed waana ku wada socoteen meher waad ku yeelanaysaa hadii uu wax ku magacaabay ama galma jirto inanta kale sheegaysa inay u shaqeynayso iyadoo fiilka caafimaadka ama caafimaadka ka shaqeynaysa ragga u shaqeynayso ee ragga taabanayso waxa ku fiican dumarku inaad ka shaqeyso ragga waxaad ka shaqeyn kartaa hadii la waayay rag kale u shaqeeya inagana waa la helayaa oo way badan tahay in iyadoo la heli karayo ninka u shaqeeya inay hablo loo diro waas xariifinta waxay ka mid tahay iyo maaragtay gaala ku dayashadii xasay ka mid tahay iyadoo inamadii neeraska halkan joogan ayaa hablo neeras rag loo diraya inamadiina dumar baa loo diraya taasi sax ma aha waa qalad waana gaf weeye qofku kolka uu qof kale ka ajnabiya ama cawradiisu ka xaraanta eegi karaa waa marka jinsigiisii loo waayo su'aasheeda kale ah hadii aan taabto xubinka taranka qofkii aan ka dhalinay anoo golofis gashan weysadu miyayga buraysaa maya kol hadaad golofiskii gashan tahay oo wax ka xiga kaama burayso wallahu a'lam jazakallahu khayran intaasaynu kusoo gabagabeynayna su'aalihii maanta oo sheekh maxamed sheekh Umar Diri nooga jawaabay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro cidii su'aal haysa waxaan ka codsan lahayn waqtiga maghribka inta ka horeysa inay imaamka runtii soo gaarsiiyaan sida iyo kulanka bari ayaynu markaa ku kulmi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.